لله انتو صرنا معنين محا قرشيست وحا قرشيست إنا هرت ودن كجورة أولا قرشيستي مدة لبعضها وحا قرشيستا وحي تهاي إن بزنس كيجا نيروبي كجوجيو مع سلاميو مدة سدحات ومهم سن قرشيستا وحي تهاي إن نكون سينجل. Wait a minute. نكون سينجل سو يا بنتي هي لكن قرشيستي لأنه بلا قرشو قبر نول ما جرت الدنيا دان أو نجرو أو 2023 لما نوصل هذه عتها بلا قرشو نقو قبر قرشه هذا 2024 أو هيرجلسو نوع ربع هذا مهم معهن وحان اسمي ناس ميسيد ninkii dhagalaho wax maqal ee taagantahay qoftan laakiin anu xarba inaan ra'yigeyga wax yar uga darsado maadaama ay dhici karto inay jiraan gabdho dhalinyaro ah oo xilligan gabadhan muuqaalka soo saareysay ku jiray xaalad oo family problem ah oo laga yaabo inay stress ku furan yahay inay madaxooda uu ka dhex guuxaayo inay go'aan qaataan nolosha ay wax ka bedelaan marka video noocan markuu soo baxo waxa laga yaabaa inay horay ka qaataan oo yacni dhiirigelin ay ka helaan videogan laakiin gabadha hadalkeeda waxa ku jiray muhiim ma ahan waxa aan sameeyay inaan sameeyay laakiin qorshe yeelo same time weynawaninoosaa oo weynala dardaarmoosaa nolosha hadaa singalnimo ka dooratidna inaadan guul dareysanaynin noo muujinoosaa laakiin meesha waxa ku jirto qof walba ma sameyn karaa waxay sameysay maya ma sameyn karo sabab dadku isku xaalad ma aha iyada waxa laga yaabaa nolosheedii inay ku jirtay inaysan wax faa'iido ku qabin dhinac walba inaysan awlaadeeda faa'iido ku qabin nafteeda aysan faa'iido ku qabin that's why nolosha inay iyada kaligeed raacato ee u qurux badnaatay laakiin adiga waxa laga yaabaa nolosha aad ku jirtid ina adiga xoogaa aad ku wajacsantahay oo ku wareersan tahay laakiin aad hooyo tahay ilmo leedahay ilmahaagii ee nolosha faa'iido badan u leedahay ma fahmino hooyo markaa tahayna waajib aad iyo aad u weyn ku saaran maaha meeshan aniga ciriiri ku qabo waa inaan ka baxaa hadii aad adiga markaad baxdid kadib adiga ilmahaagiiba wada nasanaysaan yes ka bax nolosha ciriiriga ee laakiin hadii ilmahaaga baaba u horseedayso mustaqbal la'aan u horseedayso sida lagu yaqaan nimanka Soomaalida hooyada markay furaan caruurtana way ka daba furaan ha sameeynin ilmahaaga dartood u dhabar adeeg maaha inaan idin niyad jibinayo laakiin waxa aragnaa qoysas badan oo burbureen oo qurbaha kaleento waxa arkaysaa gabdho badan oo hooyooyin kali ah nimankiina ay nolol iska raacdeen laakiin hooyooyinkii iyo ilmihii isku baaba'san yihiin hooyada ay jeceshahay in inta ilmaheeda soo wadato dhul muslim keensato diinta wax ka barto laakiin ay hooyada ku leedahay hadii aan soo baxo yaa i soo biilaayo ilmihii aabahood uu deeriyay waxna ma u taraayo waxna ma nasiinaayo that's why waan ku qasbanaa noloshooda darteed inaan dhulkan ku haayo markan ku dhahayo ilmaaga dartood u dulqaado haduu faaraxan ilmihiis wax siisanayo markaad madaxaaga ka qaadato kadib uu yahay aaba fiican oo ilmihiis wax siisanayo waxa ugu fiican waay adiga haduu ku rooneen adiga iska kaafasaxo ilmihiisana uu dabaranayo ama ilmihii ma aragtay waalid ka caawiyo sida hadda abaayadan ay sheeganayso muuqaalka soo dhameystay waalidkayga iyo ehelkayga dhinac walba ay garab taagan yihiin tan kale ee fartuun waxay ku nooshahay dunia muslim laakiin waxa jira hooyooyin ku nool dunida aan muslimka ahayn haddaadan helaynin garab waalid iyo garab walaal oo caruurta kula korinayaan si caruurtaada adduunkoodii aakhiradooda u badbaadsatid abaay macaanto u saxseexo 5 sano 6 sano aad ilmahaaga dartood u saxseexatid u dhabar adeegtid ilmahaaga aad soo saaratid liist hadii quraanka xataa ku soo xifdiyaan hooyada Afrika ku noolna inayba gabi ahaanba inta ilmeeda tuur lahayd oo ayada ay nolol raadsan lahayd oo cunugeeda habeen bicid la seexan lahaa abaay macaan cunugaaga dartiis ilkaha isku dhaafso ani ma u maleynaa inay sax tahay way soo karayaan ani ii karayaan cunuga ma waxa u dhalaysa inuu nolosh ku dhibtoodo umaada dhaleenin cunuga seeg iyo dulsaar ku soo korayna ilmaha kale uu ka hooseeya lafa ahaan iyo aqli ahaanba soo ma isku helaysid in aad riyadaada ka dhaweysid iyo in aad maxay waxa aad rabtid waliga ahaatid labadaba way ku adkaanayaan soo marka anigu ay ugu adkaatay mid waxa doortaa wixii xornimadeeda quruxnimadeeda qosolkeyga dhowl cadeynteeda stress la'aanteeda jawi degan ilmeyga aan korsanayo oo nolol yar oo qurux badan simple ah iska sameysanayo simple ah ma fahanteen sida hadda nolosha yar oo kuyudka ah ku jiro alxamdulillah iyo baraka inta ku jirin ilaahay
aamiin 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 ilaahay ha u barakeeyo walaasheen nolosheeda waxaana waa nasiib ayada nasiibkeeda uu ku saaciday inay markii keligeeda noqotay ay nolosheeda qurxoonaatay ee wanaagsanaatay wixii u qarsoonay ma ogin sidaa ujeednaba ayagu famil qurux badan aan arki jirnay laakiin gabdhaha qaarkood kuwa saacan laga yaabo inuu aada iskugu buuqsan yihiin waa la iska warhaya dumaraa layahay ee xaaladdu ku xun tahay please ha fiirinin taada bis haddaa awlaad yaryar leedahay hooyaa tahay adduunya aakhira waxaa dhasho waa lagaa wareysanayaa ilaahay kugula xisaabtamaayo ilmo adduunya aakhiraba anfac leh inaad soo saaratid ku dadaal xaasidkiiyow kaa waalin maanta hadduu cunugaaga xanuunsan yahay oo uu kili u baahan yahay qofka ugu horeeya diyaarku ah inuu kilihiis u bixiyo adiga waayo xataa labada isugu dari lahayd bisaraaxan soo maada awoodi weynin farxadaada inaa awlaadaada siisid muuqaalkaygan intaan kusoo gabagabeynaya fartuun waxaan leeyahay xabiibtii raali ahaa ha iga xumaanin adigu kuuma dalnihi muuqaalka asoo duubtana waxba kama qaldaneen laakiin dadka qaar ayaa saas adiga sheegtay qalad u fahmi karo oo muuqaalkaaga dartiisa go-aan qaldan u qaadan karo insha allah waxaan rajeynayaa marka inaan annaga dhan isfahanay mac salaamo